warbaahinta aftahan video production waa mid kamid ah warbaahinada Soomaaliyeed hase yeeshee warbaahintan waxay gaar u tahay oo ay ka hadashaa dhinaca YouTube-ka warbaahinta aftahan video production waxaad ka dhageysataa wararkii ugu dambeeyay 24 saac guud ahaan caalamka gaar ahaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya sidoo kale waxaad maqashaa barnaamijyo kala duwan oo warbaahinta aftahan video production ugu talagashay shacabka Soomaaliyeed haddaba dunida meel walba oo aad ka joogto waqti wacan iyo dhageysi wanaagsan ayanu had iyo jeer ku rajaynayna dhageyste haddaba saacada stuudiyaha koowaad ee aftahan video production magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxay gaadi socoto gurgurato waxay gaadada imika ku haysaa waqtigii aad dhageysan jirteen barnaamijka habeen wanaagsan haddaba muxuu yahay barnaamijka habeen wanaagsan waa mid kamid ah barnaamij siyaasadeedka warbaahinta aftahan video production anigoo Cabdilaahi Balwaan ayaa ka soo gudbinaya magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika وبرنامجكي هبين ونكسن صومالي ويني هبين ونكسن هبين ونكسن صومالي ويني هبين ونكسن هبين ونكسن انتي هبسانتين دنتو تخلالين مرقاك وهولا الله هدوشي هبين ونكسن أهل مرقانكا انتي هبسانتين دنتو تخلالين مرقاك وهولا الله هدوشي هبين ونكسن هبين ونكسن kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaasha qadarinta iyo qiimaha inaga mudan dunida meel walba oo aad ka joogtaan kula soo dhawaada barnaamijkii habeen wanaagsan صومالي ويني هبين ونكسن هبين ونكسن صومالي ويني هبين ونكسن هبين ونكسن انتي هبسانتين دنتو تخلالين مرقاك وهولا الله هدوشي هبين ونكسن أهل مرقانكا انتي هبسانتين دنتو تخلالين مرقاك وهولا الله هدوشي هبين ونكسن هبين ونكسن markale kula wanaagsan dhageystayaal dunida meel walba oo aad ka joogtaan qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo diyaariyay qorshe lagu rarayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maxaa loo rarayaa garoonka halkeena laga dhigi doona garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho caawa ayanu iftiimi doonaa hadduu alla idmo hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay ka hor yimid amar ka soo baxay kooxda argagixisada al-shabaab oo lagu doonayay inay degdeg u fuliyaan muxuu yahay amarkaasi al-shabaab hoteelada ay ku soo rogeen maxayna ku diideen qayb ka mid ah hoteelada ka soo horjeestay go'aanka argagixisada caawa ayaad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu alla idmo Abdirahmaan Cabdi Shakuur oo ah mid kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa si buuxda u adeegsanaya lacagihii oo Imaaraadka Carabta ka soo qaaday iyadoo lacagahaasina indha sarcad looga dhigayo qaar kamid ah shacabka Soomaaliyeed qorshe siyaasadeedka Abdirahmaan Cabdi Shakuur ee adeegsiga lacagta Imaaraadka Carabta caawa ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa hadduu alla idmo qodobada iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeenan habeenimo ee habeen wanaagsan barnaamijka waxaa soo saaray anigoo Cabdilaahi Balwaan isla aniga ayaa idin la socodsiinaya waana mar kale iyo barnaamijkii habeen wanaagsan صومالي ويني هبين ونكسن هبين ونكسن صومالي ويني هبين ونكسن هبين ونكسن انتي هبسانتين دنتو تخلالين مرقاك وهولا الله هدوشي هبين ونكسن أهل مرقانكا انتي هبسانتين دنتو تخلالين مرقاك وهولا الله هدوشي هبين ونكسن هبين ونكسن habeen wanaagsan dhageystayaal dunida meel walba oo aad ka joogtaan qodobada idinku soo maqan waxa qayb ka ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumaddiisa oo bilaabaya qorshe garoonka diyaaradaha lagu rarayo waxaad maqli doontaan sababaha kalifay garoonka diyaaradaha in laga raro goobta uu imika ku yaalo iyo halka la geey doonaba caawa ayanu barnaamijka ku iftiimi doonaa hadduu alla idmo balse marka hore qaar kamida milkiilayaasha hoteelada magaalada Muqdisho ayaa si buuxda uga hor yimid go'aan argagixisadu ay ku soo rogtay qayb kamida hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho intaaynu warbixinta faahfaahinteeda gelin barnaamijkan habeen wanaagsan ayaa in muddo wuxuu daba taagnaa isfahamka qayb kamida hoteelada Muqdisho ku yaala iyo argagixisada iyo sidoo kale amarada argagixisada al-shabaab ay ku soo rogaan hoteelada ku yaala caasimadda warar aynu
xog ogaal u nahay isla markaana in muddo aynu baaraynay ayaa qayb ka ah in qaybo ka mid ah milkiilayaasha hoteelada muqdisho ay bixiyaan lacago leejo ah oo la siinayo argagixisada al-shabaab hoteelkii diidaa wuxuu la kulmayaa weeraro ismidaamin ah sidoo kalena lama siinayo kalsooni ah inuu madaxda ka karayn karo laakiin hadduu lacagta leejada la baxo waxa uu ka karayn karaa qofkii uu doono baarlamanka degi kara wasiirada ayaa degi kara sharo jaraa'id ayuu ku qaban karaa laakiin haddii uu diido lacagta leejada ee sida kooxda al-shabaab ugu yeeraan ay tahay gudhooyinka taakulaynta argagixisada haddaan la siin waxaa dhibaato ka imaanaysa hoteelkaasi ammaankiisa haddaba maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray in ballamo ay kooxdaasi ay qaadeen ay fulin waayeen iyadoo hoteello ka mid ah hoteelada magaalada muqdisho oo lacagtaasi leejada iyagoo bixinaya qaarkood waa la weeraray qaarkoodna waa laga raaligeliyey weerarka markii uu dhacay hoteello waxaa jira markaa ay dhibaatooyinkan argagixisada ay ka dhacaan markuu burburka uu yimaado kadibna ay kooxdu tiraahdo raalli ahaada ee weerarkeenu ma ahayn sida waynu qaldanay kadibna qayb bay ka bixiyeen al-shabaab lacagta hoteelkaasi lagu dhisayo waa haddii ay qaldamaan oo targetkooda hotel aanan ahayn arrintu ay ku soo aado haddaba ilal xog ogaal ayaa sidoo kale xaqiijinaya in qaybo ka mid a hoteeladu ay lacagta dhiibaan inta aan la gaarin waqtiga kooxda al-shabaab ay ugu talagashay halkee baa lacagtaasi lagu diraa yaa xiriiriya shabaab iyo hoteelada magaalada muqdisho waa xog dheer oo u baahan qof kasta oo Soomaali ah inuu wax weyn ka ogaado argagixisadu waxay awood u leedahay in magaalada muqdisho ay ka soo doonato lacagta argagixisadaasi loogu talagalay hoteelada ayaana laga qaadaa laguma shubo account lama dhigo xawaalad laakiin si kaasha ayaa lacagtaasi loo bixiyaa milkiilayaasha hoteelada iyagoo og in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan tahay muqdisho ma jirto مسؤول هوتيل او امركا كوخداسي كور يمادا اسلا markaana lacagtaasi diida ama gacan geliya wakiilka al-shabaab lacagta u gudbinaya laakiin xaaladii waa isbedeshay waxaa soo baxay waqtigan hoteelo si toos ah u diiday amarka argagixisada uga imaanaya waxayna xaqiijiyeen in hoteeladaasi aynan diyaar u ahayn haba yaraatee inay u hogaansamaadaan amarka kooxda argagixisada waxaana durbadiiba bilaabanaya isfahamwa milkiilayaashaasi hoteelada weeyaan iyo kooxda argagixisada hogaamiyaashoodaba soo kala dhaxgalay warbixin kooban oo ku saabsan arrintaasi waa kan wariyaha arrimaha siyaasadda barnaamijka habeen wanaagsan oo ku sugan stuudiyaheena magaalada muqdisho oo si kooban uga faalloonaya xiriirka hoteelada milkiilayaashooda iyo kooxda argagixisada ka dhaxeeya iyo waliba amarkan cusub oo milkiilayaasha hoteeladu ay ku diidayaan hadalka kooxda argagixisada al-shabaab kadib amar culus oo ka soo baxay shabaab ayaa la sheegaya inay hadda u muuqado mid hoteelada qaar ay xirmi doonaan oo ay woodi waayeen amarkaasi inay fuliyaan in hoteelada qaar ay shabaab hor dhigeen inay lacaga badan bixiyaan balse milkiilayaasha hoteelada ay awooddaasi sameyn waayeen hoteelada qaar ayaa waxay u hoggaansameen in lacagta ay shubaan si ay uga badbaadaan mishinka weerarada wata ee shabaabka ku soo qaadi karaan oo loogu hanjabay gudaha muqdisho hoteelo ay ka mid yihiin saxafi iyo ambassador ayaa maamulkoodu ay diideen in lacagtaasi ay bixiyaan ayna sheegeen inay iska difaaci doonaan weerar walba oo lagu soo qaado shabaab ayaa ku goodiyay in hoteeladaas ay wajahayaan weerar kale maadaama labaduba hore loo beegsaday oo khasaare nafeed ay geysteen hotel saxafi dadkii ku dhintay waxaa la xasuustaa inuu ka mid ahaa marxuum jenaraal cabdilkariin yuusuf aadan dhagabadan halka ambassadorna xildhibaano qaali ah oo golaha shacabka ka tirsanaa ay labaduba ay ku dhinteen labada hotel waxaa weerarka lagu qaaday oo shabaabkuna mas-uuliyadiisu ay sheegteen sanadkii hore 2016 Soomaali weynay habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan intii habsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan allah haduunsha habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii habsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan allah haduunsha habeen wanaagsan weli barnaamijkii habeen wanaagsan ayaad dhegaysanaysaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa bilaabay lacagihii imaaraadka oo ka soo qaaday in uu indhasarcaad uga dhigo bulshada Soomaaliyeed waxaa jirta barnaamijyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka qaban qaabinayo magaalada muqdisho faahfaahin ku saabsan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo qorshe siyaasadeedkiisa loo adeegsanayo lacagihii imaaraadka carabta waa kan mar kale wariyaha arrimaha siyaasadda barnaamijkan habeen wanaagsan oo isagoo jooga magaalada muqdisho waqti badan geliyay dabagalka xaaladda siyaasadeed ee cabdiraxmaan cabdishakuur ayuu si kooban ugu soo diyaariyay barnaamijkan habeen wanaagsan waxa uu baal ah in imaaraadku uu lacagtiisa isku baraayo Soomaalida si ay taageero badan uga helaan shacabka iyo madaxda dawladda Soomaaliya
siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo 2 jeer isku soo mutaxay murashax madaxweynaha Soomaaliya ayaa wax la sheegay inuu fiilada ku xirtay dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta lacag gaaraysa $100 ka ayaa la siin doonaa qof walba oo ka qayb noqda barnaamij dood ah oo looga hadli doono arrimo siyaasadeed oo dalka ka jira ah arbacada oo ku beegan 22 November ayuu ku qaban doonaa Muqdisho siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur doodaas waxaana Imaaraadka ay si maldahan u rabta in lacagteeda ka shaqeysa Soomaaliya iyadoo kadibna siyaasiyiin uu hormuud u yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ku adeegato in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu sheegay in dhaqaalaha uu bixinayo uu ku soo bandhigi doono aqoonta iyo waliba dooda isagoo isla doodayo waana naqshad cusub oo hore looga arkin Soomaaliya iyadoona dadka siyaasiyiinta meel fog wax ka arkaya ay leeyihiin Turkiga ayaa bedel ay u noqon doonaan Imaaraadka marka loo eega galaangalka ay hadda la yimaadeen Soomaali weynay habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan Allah hanuunshe habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii hadsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan Allah hanuunshe habeen wanaagsan habeen wanaagsan ayaad weli dhageysanaysaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa loo soo jeediyay in garoonka diyaaradaha laga raro goobta uu hadda ku yaalo waa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee ku yaala magaalada Muqdisho codsiga soo jeedinta dowladda durbadiiba markii dowladda loo soo jeediyay waxa ogolaaday oo qalinka ku duugay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo garowsaday sababta loo rarayo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho isweydii halkee la geey doona garoonka sababteena loo raraya haddaba warbaahinta aftahan video production ayaa waqti dheeri ah ku bixisay ogaashaha xogtaasi iyo sida warbaahinada qaarkood aysan u hayn si ay bulshada ula wadaagto waa kan mar kale wariyaha arrimaha siyaasadda ee barnaamijka habeen wanaagsan oo ku sugan Muqdisho oo qaaba dhigaya garoonka laga rarayo magaalada Muqdisho iyo qaabka dawladdu ay u soo dhaweysay dawladda Soomaaliya ayaa loo soo jeediyay in garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka rarto magaalada oo uu ku dhow yahay oo meel gaar ah laga dhiso hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada maamulka garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo xubno u badan qubaro ku xeeldheer garoomada oo kamid ah shirkadda Vavori ee Turkiga ee garoonka diyaaradaha hadda maamusha ayaa isku khilaafay arintan waxa soo jeedinta in la raro garoonka meesha uu ku yaalo lahayd Vavori oo Turki ah isla markaana garoonka hadda gacanta ku haysay iyadoo sheegtay in amni ahaan xitaa aysan wanaagsaneyn magaalada iyo garoonka inay isku dhawaadaan qorshahan ayaa hadii uu suuro galo wax la sheegay in deegaanka jasiire loo bedelayo garoonka si qurux badan halkaas looga dhisi doono xog ay ku ogaatay in hadii barnaamijka socdo la eego ay rabaan dad gaar ah inay ka macaashaan lacagta loogu talagalay in hawshaas dhismaha lagu gudagalo garoonka lagu bixinayo balse ay toosh weyn wadato wasaaradda wasiir Omar uu madaxda ka yahay ee duulista iyo gaadiidka hawada Soomaaliya Soomaali weynay habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan Allah hanuunshe habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii hadsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan Allah hanuunshe habeen wanaagsan intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii habeen wanaagsan oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan barnaamijkan wuxuu gaar u yahay warbaahinta aftahan video production oo ka hadasha YouTube-ka haddaba waa soo saaraha iyo tabiyaha barnaamijka Cabdilaahi Balwaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan Allah hanuunshe habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii hadsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan Allah hanuunshe